guraceel janna muxuu ka hadlayaa isaguna buugaas guraceel jannaad wuxuu ka hadlayaa magaaladii aan ku dhashtay oo la yiraahdo guraceel jannaad oo dowlad goboleedka galmudug gobolka galgaduudna ka tirsan 490 kilomitir ama 80 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho 70 kilomitir u jirta caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb muddo 4 sano ayaan qoray buugaas runtii waxay ahaa buug aan runtii aniga waxyaabo kala duwan ay u dhaliyay buugaas sababta ugu dhaliyay waxay ahayd maalin baab waxa uu yimid qolo ingiriiska ka timid taasoo rabay inay taariikhda magaalada wariyaal bay ahaayeen runtii subaxdaas waxaan ku soo dhaweynayaa xaafadda dadka xaafadda ku soo dhaweynaya kamid ah marka ugu yaraan 2 saacadood ay video duubayeen oo taariikhda magaalada uga sheekeynay markii ka tageen aabe ayaa waxay u soo dhacday fikir Atolo Mustafa dadkan maxay yihiin يعني وجدك إكلم تاريخ المجال هذا عدينا آدم كلحين كسب أبو ومت أبو حيلي الله كون أبو ومت الله نحرس مركز حير أبو حدوني أنا تاريخ المجال أنت وشكتي عن أني القرط لأنه حرب أنا بوك صاروا أنت أبو الله نحرس تسيدي أيوة أقبل أنت تاريخ هاي مجال ما داود كواي أرجع بتقولي مجال الدين كمدها أساس أي تاريخ ده سيدك لو حنا كاش دكتور جوجا oo yani magaalada taariikhdeeda aad u hay madaba taariikhda ummadda Soomaalida iyo ummadda Afrika dhan ay ku kaydsan tahay way arag waxa leeyahay qof kaste markii qof weeyar inta Afrika maktabad baalanta anakoo inta badan qulubteena iyo maskaxdeena dadka Soomaalida waxay ku jiraan waxa weeye way arag dadka Soomaaliyeed marka saas ayaa buugaas ku soo bandhigay 2018 ayaa soo bandhigay magaalada Gurceel waankii hadana bandhig labaad ayaa magaalada Muqdisho lagu sameeyay oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka waqti